Asalaamu calaykum walaalay qaali aan jeclahay waa idin wada salaam meel kasta adduunka joogtaan waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan walaalo cusub waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada haddii ay tahay marka ugu original kusoo booqatay subscribe inoo saar insha allah waana kaaga mahadcelinaya la joogistaada quruxda badan walaalaha quruxda badan waxaan leeyahay cawad waxaa waaye rutiinkeena insha allah waxay ku saabsan tahay ilmaha cuntadooda raashinka habeenkii aan siiyo ama cuntada ugu fudud aad sii karta ciyaalkaaga muuqaalkan wuxuu anfici doonaa hooyooyinka cusub ama hooyooyinkaba yacni haysta caruurta marka horetaba insha allah meeshan waxaan kusoo haystaa waa karootooyinka yacni karootada waxaa waaye eclogiska broccoli iyo bataati macaan ayaa halkaas ku haysta sida arkaysaan jab yar ayaan soo jabsaday iyo hal xabo baradho weyn oo baradhadeena caadiga ahayd soo intaas qudaarta ayaan isku dari doonaa insha allah soo qudaar allaala qudaarta aad jeceshaha ayaa isticmaali kartaa qasab maaha muhiimadu waxaa waa un ilmahaaga siday ku heli lahaayeen qudaar isku dheelitiran ama markaa yacni cuntada fructiga hadda siin karta caadi waaye haddii aad qudaarta siin karto soo habka uga habeyn karta ayay ku xiran tahay soo ilmo yar hadduu ku joogo qudaarta necab ama yacni sida ugu farsameyn doonto ugu fudud ugu sahlan oo ugu macaanta badan ayaan tusinayo idin wadaagayaa soo sida arkaysan dabka ayaan soo saartay wax yar oo cusbe ah ku soo darsay insha allah hadduu cunugaaga yahay cunug roon oo sanadka weyn haddii cunugaaga yahayna baby yariis ka dhaaf cuntada insha allah saas ayaan kula tali lahay soo biyo yar ayaan kusoo darsaday daboolka ayaan usoo dhunjiyay intay nooga soo bislaadaysa ayaan sugaynaa baaquli ayaan soo qaata marka waxaan ku shubtay hal xabo ukun ayaan kusoo riday wax yar oo filfil iyo liin dhanaanta la qalajiyo ayaan kusoo darsaday kadibna ukunta ayaan si fiican ugu garaacayaa ukunta insha allah waxaa u isticmaali doonaa qudaartaas aa aragteen ayaan kusoo darsan doonaa hadhow laakiin hadda waa sii diyaarsanayaa walaahi cuntadan lagama sheekeyn karo waa high protein waaye ilmahaaga haddii uu 6 bilood jiro ka bilaabato waa siin kartaa aad iyo aad ayay cuntadan u fiican tahay haddii uu yacni aslada alla leeyahay habeenka maxaa u sameeyaa casho ahaan qado ahaan waa ugu dhigi kartaa xil alaala xilligaa doonto soo qudaarta markii ay noo soo bislaatay ayaan waxaan sameeyay wax yar oo subag ayaan kusoo shubay ayaan kusoo dhex riday cafwan kusoo shubay kulaha af soomaaliga qalqalad marmarka qaarkood galaa soo birtaas ayaan soo qaatay muhiim waa qudaartaada inay si fiican usoo bislaataa kadib waxaan sameyn doonaa insha allah wax dhan oo burtuur ah waa ka bixi doonaa waxaan sameynaa aad iyo aad ayaan u burburinaa si fiican isku soo dhex gasha ayaan rabaa soo birtaas haddii aad haysato waa sameyn kartaa haddii aad mashiin haysato waa isticmaali kartaa birtaan maaha qasab inaad haysato laakiin birta aad iyo aad ayay u fiican tahay sida bataati muuska wax kasta ayaa kaga sameysan kartaa ku burburin kartaa cafwan haddii codkayga uu si kale yahay waxaa waaye hergab ayaa si xun noo haya familka anaga dhan caruurtu way jiran yihiin muuqaalka xitaa mar hore ayaan duubay laakiin xilli dambe ayaan idiin soo fasixi doonaa oo maanta oo tahay khamiis ayaan codka saaray laakiin muuqaalka waxaan duubay isniintii ayaan duubay soo waa awoodi waaye caruurta maadaama ilmo yar ah haysato ay kaa xanuunsan yihiin hergabka hayo waxaa waaye aad iyo aad ayay u dhib badan tahay inaa waxyaabo muuqaal ah meel soo geliso soo shaqo ayay u baahan tahay videoga waa duuba laakiin waxaa awoodi waa cod inaan soo saaro waayo jaanis oo heli waaye ilmihii hergab xun ayaa socdaa dartan yahanada hadalka idinku dheereen kadib waxaan sameyn doonaa insha allah ukuntii aan soo diyaarsaday ayaan waxaan kusoo riday qudaartii soo qudaarta way kulushahay haddii aad jeceshahay waa soo qabooji kartaa marka horeeto haddii qudaarta muhiim waxay tahay qudaarta markay kulushaa ukunta inuu ku boobsiiso waayo ukunta haddii kale way kaa bislaanaysaa inay hadhow cadcadaan ka yeelata iska ilaali soo si fiican ayaan isku soo dhexgeliyey haddii aa ilmahaaga 6 bilood ilaa sanad intuu dhexeysa aad siinaysana sidaan ugu dub ayaan ku dhihi lahay laakiin cunugaaga haddii uu sanad ka weyn yahay oo kaleeto wax yar oo bur ee kusoo darso insha allah oo qaando bur ee ku dar oo ku yara adkay siduu cunugu ugu noqdo wax yar oo crispy ama rootiga la qalajiyo kaleeto laakiin cunuga haddii uu 6 bilood ilaa sanad uu yahay uma baahna inaad bur iyo waxaas ugu darto waayo sidaan ayay ku fiican tahay aad iyo aad ay u jilcantahay cunugana ma dhaweysa hadhow laqadiisa soo baaquliga markii halkaas kusoo diyaarsanay sida arkaysaan birta waxaan soo mariyay wax yar oo subag ah dabka luxuus ayaan kasoo dhigay number 5 ayaan ku duubayaa kadib waxaan sameeyay qaando si isla eg ayaan u sameyn doonaa insha allah intii karaankaaga adiga waayo qudaartu way bisasha reedaan yani uma baahan inaa bisil saaid laga sii dhigo soo marka kusoo shushubo waxaan sameyn doonaa insha allah baaquliga haddana waa soo qaaday waxaan ku shubi doonaa haafka kaleeta ayaan waxaan rabaa wax yar oo jiis inaan ku daro ama usta qof walba sida uu garanayo ayaan jiiska ayaan ku dari doonaa waayo qaybtaas waxaan ka dhigay jiis la-aan ayaan ka dhigay qaybtan kaleeta ayaan waxaan rabaa inaan jiis ku daro gabadheeda iyo wiilkayga labadaba inaan siiyaa rabaa
waxaan sameyn doonaa insha allah hal xabo oo jiis leh xabad aan jiis lahayn inaan yani ku baroobeeyo sidoo cunayo waa garanaysaa. waxaa waaye caruurta markay hergab haayo cuntooyin ma cuni karaan. cuntooyinka in maanta loo kala duubo waxay ayaga jecel yihiin in loo sameeyo mooyaane wax kaleeto maanta dhan wax alaala hadaad kariso hergabka ma garanayo. hergabka waxaa waaye wadankan hadda anaga joogno hergab xun hergab ma la dhihi karo ayaa ka socdo. cunugay waxaa ka dhumayo urta ayaa ka dhumayso cunto dhan ma usoo dhadhamayso maba jeclaanayaba. 2 xabo qaando ama wax lagu qaado ayaan soo qaaday si tartiib ayaan u gedinaa. waxaan diidaa inay iga jajabto sida arkaysa aad iyo aad ayay u jilcan tahay waxba uma dul qaadan karto. maasha allah tabaarakallah sidaas qurux badan ayay kusoo baxday walaahi bilaa lagama sheekeyn karo. soo tijaabiya haddii ay tahay markii ugu horeysa aan noqoto hooyo waxaan kugu bishaareynaa hooynimada horta marka koowaad waayo hooynimadu waxaa waaye macalinimo. nolosha waxay ka bilaabataa markay hooyo noqoto. hooyo markaa noqoto wax badan ayaa baranaysaa walaa hooynimada dhidhiil maaha. cunugaaga waxaa baranaysaa wixii anfacay iyo waxaanan anficaynin waxyaabo badan ayaa ku kala saarmaya ayaa ku baranaysaa hooynimada. marka hore markii aad tahay gabar yar oo aanan guursanin oona ilmo haysanin waxaa waaye nolosha waxay kula tahay easy laakiin hooynimada waxaa waa shay qaali waa dareen gooni aan la qiyaasi karin waayo. qaybtii aan jiiska kusoo daray ayaa haddana soo sameyn doonaa insha allah. maasha allah tabaarakallah sidaas quruxda badan kalarkaas yiri quruxda badan ay kaaga baahan tahay inaad u sameyso. ha ka cabsanina caruurtana ku bara ama ku tababara inay iyaga keligood wax cunaan insha allah. qaybta kale hadda markii xoogaa soo bislaata aan arko zaaid ay u jilcantahay sida arkaysaan. cunuga ma dhibaysa laqistiisa macaanka kaale iska arag wallaahi bilaa waxaan dhawaaba waxay ahayd way jeclaatay gabadheeda yarta ugu horreysay wiilkayga awalka hore oo sameyn jiray laakiin gabadheedii ku cusbeed. maasha allah tabaarakallah sidaas quruxda badan ayaa saxanka ugu soo diyaariyay sida arkaysaan. meeshan waxaan usoo saaray hal xabo brokoli oo biyo ugu soo kariyay mooska aad u jeceshay jab yar oo moos halkaas ugu soo jaray iyo wax yariisoo digaag oo marka hore aan kusoo kariyay meesha hawada aan kusoo kariyay cafwan haddii luqada si fiican uu karaayo. digaaga aad iyo aad ayuu u jilcan yahay qasab maaha xitaa digaag iyo waxaasoo kale inaad siiso laakiin intaa xataa casho ugu dhigi kartaa in allaala inta haysato ugu dhigi kartaa. maasha allah tabaarakallah. saxankaas yariiska waa muhiim inaa ilmaha cuntada u saartaa inta ay yaryihiin waxay ku kala baranayaan kalarada cuntada way xiiseynayaan markaasoo kale wuxuu cunugu ku soconaa. maasha allah tabaarakallah walaahi gabadheeda waxaa waa soo agdhigay waxaan dhahay hooyo ku raaxayso daadi waxaad daadin karto waxaa cuni karto cun in yar afka kuu gasho maasha allah. waxaa waaye iskaga dhedheeleysaa intay cuni karto cunaysaa wixii ka dhaco cafwan waa ka dhacay. ayadaa marka dambe sida u rafaadaysa baranayso. meeshan waxaan rabaa inaan waxaan boosiyo wax yar oo casho ayaan rabaa inaan boosiyo. cashadan waxaa waaye casho yar oo iska fudud oo la dhaho 2-3 hadda liibixiyo casho yar oo iska fudud la iska leh. gabdhaha walaale igu xiro quruxda badan horta ducadiina waa idinkaga mahadcelinaa sida quruxda badan oo wiilkii igu soo duceysin hadalka ilaahay inuu igu furo ayaan rajeynaa insha allah. waana xawaaye dadaalkeeduna waa hayaa alxamdulilah wixii soo daha ayaa khayrka ku jiro. marka meeshan ayaa haddana waxaan sameyn doonaa insha allah. waxaan rabaa bulgur inaan sameeyo. bulgurka marka 2 nooc ayuu kala yahay. noocna waa nooc waaweyn oo bariiska camal la eg noocna waa nooc yaryar ee saaid u yaryar. saan ayaan jecelnahan aniga inta badan sida bariiska camal inaan u karsano. hilibku ma karsana laakiin chickenka ayaan ku karsanaa. basal weyn ayaan soo jajaray kadibna waxaan kusoo daray chickenka oo shafka ayaan soo jajaray kadibna meeshan waxaan ku haystaa kabsar caleenta oo kabsar caleen ayuu qaab egta oo waaweyn iyo 2 xabo yaanyo oo waaweyn aan usoo jajaray. intaas ayaan si fiican isku soo dhexgelinaa. xawaash allaale xawaashka haysta beerka u geli lagama sheekeyn karo. cashadan waa healthy inaba aan caadi ahayn. marmarka qaar haddii ay kaa qabo weysa bariiskoo kale inaad aad cunto waa ka hawagedisan kartaa. waxaa waa bariiskoo kaleeto waaye waxyaabaha cuntooyinka aadka u fudfudud anaga Soomaalidan haddaan nahnay dad Soomaaliya waxaan u naqaanaa cunto waaba yasanaaba cunto uma aragna laakiin waxaa waa cunto healthy oo aad iyo aad u macaan badan oo maasha allah tabaarakallah laga sheekeyn karin. salarka digiraha aad iyo aad ay u fiican tahay. baasti iyo bariis maanta dhan lama cuni karo marmarka qaar waxaa fiican in laga hawagedisto. intaas marka isku soo shiilanto xawaash allaale xawaashka rabo aan kusoo darsaday ayaa haddana waxaan kusoo daray
galeyda yaryar, digirta dhamacsada ee yaryar iyo barbarooniga oo cas oo guduudan oo la isku daray oo friiska igu jiro ayaan kusoo darsaday kasto soo qasam ah yaanyada in hadda burburiyo anaga waxaan jecelnahay yaanyada inay saas noo ahaato u taagnaato askari camal ee meesha kasoo dhex taagnaato. Kadibna bulgurkii ayaan kusoo shubay. Bulgurka aad iyo aad u yaryahay, biyo badan ma qaadanayo marka. So biyo ayaan soo karkarsaday, biyo ayaan kusoo daray. Walaahi waxay ahayd cunto ay nab caadi ahaan salarkaaga u karso lagama sheekay karo. Waxaa codkayga haddii aad saan ku aragtaan waxaa waaye gabadhiina yareed waa lagu dambeeyaa hirgabkaas si xun u haayo waa la jijiifaa ilaa hadda oo maanta ay khamiis tahay waa la jijiifnaa hirgabka. So meeshan waxaa waaye cashada markay caruurta iyo casheeyeen intii soo hartay ayaan waxaan soo qaatay baaquligan. Wiilkayga yar wuxuu taagay anaa hooyo daboolayo marka waxaan dhahay hooyo saan u dabool asaa ugu dhagan daboolka si fiican uma dabool yaqaano marka ilmaha inay baroobayaan way fiican tahay war marka qaar. So caagada sirta ayaan haystaa oo eega ay leeyihiin so biriyo kaleeta ayaan qadad markaas inayo kor uga soo bixinaa waan soo dabooshay talaajadaan soo gashtay waa kana bulgurkeeni maasha Allah tabaaraka Allah lagama sheekay karo wax yar oo salaad u sameyso. Haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro walaashay ama walaalkay waxaan kaa codsanaa muuqaalkan ay share gareyso like tan hanaga iloobin insha Allah waana idinkaga mahadcelinayaa dhiirigelintiin qurux badan muuqaalka